ku soo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa habeenimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11ka bisha saddexaad 2020ka xasan cali khayre oo sameeyay isku day ah in uu shaqada ka ceeriyo gaashaanle sare maxamed daahir ayaa ku fashilmay qorshahaasi kadib markii taliye maxamed daahir ka biyo diiday qorshaha xasan cali khayre ma ahan kaliya khayre in uu doonayay in uu shaqo fariisin ku sameeyo taliye maxamed daahir balse waxa uu qorsheysneed in uu darajadana ka xayuubiyo saraakiisha ciidanka ayaa u sheegay in tallaabada uu qaaday xasan cali khayre ay qalad ku tahay isla markaana ay gaf ku tahay shuruucda lagu maamulo ciidanka dhanka kale beesha Saleebaan ee uu ka soo jeeday taliye maxamed daahir ayaa u sheegay farmaajo in ciidanka aan loo isticmaali karin argoosi qabiil dhibka ka dhasha qorshaha xasan cali khayrena uu mas'uuliyadeeda isaga qaadi doono taliye maxamed daahir ayaa waxa hadda uu ku sugan yahay xarunta shirkole iyo xarunta gulwadayaasha ee magaalada muqdisho isagoona halkaa ku urursanaya ciidamo ku beel ah xasan cali khayre ayaa dagaal beeleed kula jira hoggaanka ciidanka waxaana horay dhaqan xumada xasan cali khayre ka soo dacwooday taliyaha ciidanka xoogga dalka generaal odawa yusuf raagi sidoo kale dhaqan xumada xasan cali khayre waxaa ciidanka uga baxay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka generaal maxamed cali bariise dhanka kale waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho lagu qabtay nin Soomaali ah oo la socda diyaaradda Ethiopian Airlines ninkaas ayaa waxaa la sheegay in diyaaradda uu ka soo raacay dalka Shiinaha oo dabayaaqadii sanadkii hore uu ka dilaacay caabuqa coronavirus oo dunida ku sii faafaya waxaana muwaadinkaasi looga shakiyay in uu sida caabuqaasi wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya oo war ka soo saartay arrimaha ku saabsan safarka muwaadinkaasi Soomaaliyeed ayaa sheegtay in hadda ninkaasi lagu karantiilayo goob loo diyaariyay dadka looga shakiyo cudurka coronavirus wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyadoo ka duulaysa waajibka shaqo ee ka saaran inay bulshada la wadaagto xogaha la xiriira caabuqa dunida ku sii faafaya ee COVID-19 isla markaana bulshada ay u bayaaninayso wararka la xiriira muwaadinka Soomaaliyeed oo saarnaa diyaaradda Ethiopia ee saaka soo gaartay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka sidoo kale qoraalka wasaaradda caafimaadka ayaa lagu yiri wasaaraddu waxa ay ka codsatay hay'adaha ay khuseysay inay la xisaabtamaan oo tallaabada ku habboon ka qaadaan diyaaradaha jabiya tilmaamaha ay bixisay dawladda Soomaaliya kuwaas oo la xiriira caafimaadka iyo isku gooshka dhanka kale hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in kooxda al-shabaab ee dishay madaxii hore ee amniyaadka kooxda ee magaalada muqdisho muuse macalin mucaawiye qoraal ay nisa soo dhigtay barta Twitterka ayay ku sheegtay in muuse macalin xalay saqdi dhexe lagu dilay magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe kadib amar la sheegay in uu bixiyo amiirka al-shabaab Axmed Diiri Abu Cubayda qoraalka nisa ayaa intaasi ku daray in xabsiga loo taxaabay madaxa howlgelinta amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed iyadoo la fulinayo isla amarka Axmed Diiri warka ka soo baxay nisa ayaa imaanaya iyadoo hay'adaha maalmahan ay warinaysay khilaaf ay sheegtay inuu ka dhex taagan yahay kooxda al-shabaab 3 Febraayo ayay ahayd markii ugu horeysay ee nisa ay sheegtay in Axmed Diiri uu mahad karataa iyo Bashiir Qorgaab ka saaray golaha fulinta xarakada kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada sida qoraalka nisa xiligaasi lagu sheegay taasi waxay timid kadib markii ay ka dalbadeen joojinta qaraxyada joogtada ah ee lagu beegsado shacabka magaalada muqdisho Bashiir Qorgaab ayaa kadib waxa lagu dilay duqeyn ay ciidamada Mareykanka fuliyeen 22kii bishii Febraayo qoraal kale oo nisa ay baahisay 13kii Febraayo ayay ku sheegtay inuu xiligaasi iscasilay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee al-shabaab Muuse Macalin Mucaawiye kana tirsanaa garabka raacsan mahad karataay dhanka kale dawladda Ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in ay joojisay maalgashigii ay ku lahayd dekedda magaalada Berbera ee Somaliland sida uu qor wargeyska Capital ay ka soo baxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi wargeyska ayaa daabacay in toddobaadkii la soo dhaafay xukuumadda Addis Ababa ay hakisay 19% saamiga maalgashigii ay ku lahayd dhismaha iyo balaarinta dekeddaasi sidoo kale warbixinta wargeyska ayaa waxaa lagu sheegay in Ethiopia ay doonaysay in deked kale ay ka samaysato dalka Suudaan Ethiopia waxay saami 19% ka qaadatay horumarinta dekedda Berbera laakiin waxaa toddobaadkan la soo wariyay in mashruucaasi si buuxda loo joojiyay ayuu yiri wargeyska ilaa ay hadda si rasmi ah dawladda Ethiopia ugu ma hadlin arrinta dekedda Berbera laakiin wuxuu wargeyska Capital wareystay wasiirka gaadiidka Master Moges oo faahfaahin ka bixiyay qorshaha ay ka leeyihiin dekedda ay ka sameynayaan dalka Suudaan sidoo kale ma jir weli wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maamulka Somaliland oo ku aadan warbixinta wargeyskaasi arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhammaan dalka Imaaraadka Carabta uu ka laabtay qorshihii uu saldhigga military ugu dhisanay magaalada Berbera ee Somaliland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta gaaray gudaha magaalada Baraawe oo ah caasimadda rasmiga ah ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Khayre iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada ku soo dhaweeyay madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen wasiire ka tirsan xukuumaddiisa iyo mas'uuliyiin kale intaasi kadib ra'iisul wasaaraha ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka diyaaradaha degmada Baraawe oo dhawaan dib u dhis balaaran lagu sameeyay lana casriyay qaybta ay diyaaradaha ka soo degaan kuna duulaan ee runwayga sidoo kale waxaa munaasabadda xarig jarka goobjoog ka ahaa wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka iyo wafdi ka socda ururka midowga Yurub ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoona magaalada ay isku gadaameen ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM garoonka Baraawe oo muddo burbursanaa ayaa waxaa gacan weyn ka geystay dib u dayactirka lagu sameeyay ururka midowga Yurub oo si weyn u taageera dawladda Soomaaliya
sida hore loo shaaciyey waxay ahayd in safarka Baraawe uu tago madaxweyne Farmaajo asagoo markii dambe u baaqday sababo xagga amnigiisa iyo cabsi baahsan oo soo wajahday madaxweyne Farmaajo ayaa aad u neceb safarada gobolada waxaana xusid mudan in safarkii ugu dambeeyay 2 sano ka hor uu ku tagay magaalada Marka la arkay asagoo ku dhex jira taangiga Amisom iskuna wada xiray jaakadaha xabadaha celiya shacabkana uu taangiga Amisom dushiisa gacan ugu soo taagay waxa uuna ku dhiiran waa in uu soo dego cabsi awgeeda ayadoo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo asxaabtiisana ee magaalada Marka xeebteeda kula dabaalan jireen shacabka magaalada Marka markii uu madaxweyne Farmaajo ka cabsaday in al-shabaab ay waxyeeleeyaan ayaa waxa magaalada Baraawe tagay ra'iisul wasaare Khayre xarigana ka soo jiray garoonka diyaaradaha Baraawe Farmaajo fulinimadiisa ma ahan mid la soo koobi karo muuqaal hadda ka hor baraha bulshada lagu baahiyay ayaa sidoo kale lagu arkay madaxweyne Farmaajo oo ka gambanaya baaruudii loogu dabaaldegayay 26 Juun oo ahaa maalinkii ay xornimada qaateen gobolada waqooyi ee dalkeena Soomaaliya dhanka kale taliska militariga Soomaaliya ayaa Muqdisho ugu yeeray General Mas'uud Maxamed Warsame oo ka tirsan militariga Soomaaliya isla markaana ahaa shakhsigii Allah ka soo koob badbaadiyay hogaamiyaasha maamulka ahlu sunna ee lagu weeraray magaalada Dhuusamareeb General Mas'uud oo ah taliyaha guutada 15aad ee qaybta 22aad ayaa gaaray magaalada Muqdisho waxa uuna hadda ku sugan yahay guriga taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayadoo warar kalena ay sheegayaan in lagu xiray magaalada Muqdisho xog ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaysa in General Mas'uud la filayo in uu la kulmo madaxda dawladda ayaa arrimaha loogu yeeray ay ka mid yihiin in uu dawladda federaalka ku wareejiyo hubkii maamulkii ahlu sunna ay isaga lagu wareejiyay markii laga adkaaday Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir waxaa sidoo kale la filayaa in su'aalo laga weydiiyo sidii uu ku baxsaday Sheekh Shaakir oo xabsi guri ku ahaa magaalada Dhuusamareeb halka uu ku hayay General Mas'uud Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa habeen fiid hore Dhuusamareeb ugu baxsaday 3 gaari oo ah nooca yaryar ee lagu qaado qaadka isla markaana aad loogu yaqaan gobolada dhexe waxa uuna isku muuqaal ekaysiye xeer u socotay siyaaro ka jirta magaalada Gaalkacyo madaxda dawladda ayaa sidoo kale isku dayaya in General Mas'uud Maxamed Warsame laga dhaadhiciyo in uu wareejiyo xarunta 22aad ee ciidanka xoogga dalka oo la rabo in laga dhiso madaxtooyada Galmudug Mas'uud ayaa qoraal uu 8 bishan soo dhigay Facebook ku yiri xarunta qaybta 22aad saldhigeedu waa caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb waana sii ahaan doontaa insha Allah israasaaseen dhimasho leh ayaa maanta xarunta ku dhex martay ciidamada ilaalada u ah madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor iyo askarta taliska 22aad ee ciidanka xoogga dalka ee halkaas degan dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii madaxweyne Qorqor oo dhagax dhigi rabay xarunta madaxtooyada Galmudug oo laga dhisay xerada 22aad xerada oo fariisin waa ciidamada xoogga qaybtooda 22aad ciidamadii ku sugnaa xarunta ayaa la sheegay inay kadib diideen in madaxweynuhu uu soo galo halkaasi kadibna waxaa bilaabatay israasaaseen socotay dhowr daqiiqo sidoo kale warar hoose ayaa waxay sheegayaan Qorqor oo gaandhari hore ah in uu qorigiisa dhinac ka qabsaday ciidamadiina kala eriyay sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa daahfuray mashruuca dhismaha madaxtooyada cusub ee Galmudug iyo 3 wasaaradood madaxweyne Qorqor ayaa maanta daahfuray mashruuc horumarineed oo lagu dhisayo madaxtooyada Galmudug iyo 3 wasaaradood sida wasaaradda maaliyadda arrimaha gudaha iyo amniga hirgelinta mashruucan ayaa waxa iska kaashanaya maamulka Galmudug iyo hay'adda SSF ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Qorqor hoggaanka cusub ee Galmudug waxa ka go'an dib u dhiska deegaanka iyo hirgelinta hay'adaha dawliga ah oo si hufan uga adeegaya howlaha loo igmaday ayaa la sii raaciyay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug gaandharigii hore ee Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media wixii warar dheeraad ah iyo sir qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakada Sirta Media